haddaan xaqiiqada laga hadlin oon xaqiiqada la wajihin oo korkaas leel iska marmaro wax ma hagaagayaan dib u heshiisiin mar badan ma maqlino yaa dib u heshiisiin loo qabtaa waxaa loo qabtaa in marka hore heshiis inay hotel ku wada qadeeyaan ogol oo miiska dhinacan ka fadhiisto kana dhinacan ka fadhiisto yaa wax kor waxaa loogu qoraa derbiga ah dib u heshiisiinta maxaa dib u heshiis way wada fadhiyaan be yaa la heshiisiyaa dad aan miis isugu imaanaynin dad aan is arki karaynin dad isdilaaya dad aynu waxba ka dhaxaynin ayaa la heshiisiyaa dhibka hadda dadka isku haaya sida aan u dhibanahay dan shacabka Soomaaliyeed nahayna xaguu ka socdaa wuxuu ka socdaa hubka iyo inta hubaysan mucaaradkan hubaysan hatta mushkilad ma la moogta dhibku kuma hayab xaguu istaagaya kalimu iska jeedinaya dawladdu way khaldan tahay ma loo dhintaa ma loo dhinto dawladdu khaldan tahay kaas heshiisiintiisu khaladka uu sheegay la iska dhaaf bis ko muqaayad soo galay waxa la yiri sokor iyo waxbuu qabay wuxuu yiri sokorta kabariyay wuxuu yiri sokorta haygaga soo darin waan iska mashquulsan oo ahaaye sokortii uu ku soo daray shaahina korku uga soo daray uu soo hordhigay markuu soo fiiriyay nus wax ku dhow sokor waan markaas sokor uu qabay dhiikarka ku kacay qaylo wiilkii yaraa ku qaylo wariyaasoo kuma dhin sokor haygaga soo darin maxaa sokor ku soo dartay wiilkii kama baahan wuxuu yiri adeer ha ku qasinno kor le kacbis marka waxaan ka wada kii mucaaradu waxba dilaynin oo la dawladda halkaas ay ku khaldan tahay Soomaa wixii ay ku khaldan tahay la sheegay ha ku qasinno adi meeshii la iska toosi laakiin waxa dib u heshiisiin u baahan dadka isdilaaya wallahi war adi maxaa rabtaa adna maxaa rabtaa Soomaali waxay yiraahdaan hadii la isla ogolaado bal maxaan isku haynaa marka dambe xal waa la helaa laakiin hadii la taagnaado waan soo afjaraaya 30 sano al soo afjaraay waxna lama soo afjarin marka 30 kale ma ku darsanaa marka si la soo afjaro mise halka aan raadinaa war aragna meeshaan si xal yahay waxa baabiina waa ummadda Soomaaliyeed waxa dhamaanay waa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waxa si baabay reer Muqdisho moogtay waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed sabir badnideeda Muqdisho magaalo la mid ma jirto waxa ka dhacaaya iyo sida ay tahay waa sida moogtay dhulka alam naj'al al-ardha kifatan soo ilaahay ma dhihin ahyaan wa amwatan dhulka waxa la yiri kan nool iyo kan dhintayba uu kaafiya kan noolna kor ayuu kaga socdaa oo kaga nool yahay kan dhintayna hoos uu ka degan yahay kan hoos ka degan kuwa waxa jira cadaabul qabri ku jiro oo la ciqaabayo wax og ma jirto dhulku sabir badana waa u daboolan tahay hoos waa laga jucinaya kuwa ahlu naarka aha hoos ay ku jiraan korna waa laga socdaa alam naj'al al-ardha kifatan way marka magaalada Muqdisho waxay tahay waa magaalo oo kifatan oo dadku way ku filan tahay wax kasta oo lagu sameeyo waa iska taxamulay dibba ma warkab ma iska jooga waa la tuma ma iska socone waa la tuma wali ayagoo dhahay maartay waa goosanayna anaga Soomaali wayna dhibtay ma jirto nagu kor socdo leedinka ilaaha jooga laan iska lana laakiin waxa u baahan tahay inaan tashano dhaano maxaa xal inoo saan yeelna hatta moogtay qofka hadii aad iska kari wada hatta wala iska tuutuuga moogtay walaalow maxay iga rabtaa al dhahaata walaalow maxay iga rabtaan lama le la iska mana celinaayo jugjug meeshaada joog kolba madaxuna loo dhigay madaafiicda la soo tuuriyo qarxi la soo dhigo kii dhinta la soo aaso ilaahay u naxariisto markaas kulli wala soo ducaynaa intii meesha ku dhimatay Allah u wada naxariisto kii dilay iyo kii dhintay kulli Allah u wada naxariisto inta noolna Allah wada kulligeen marka Allah wada naxariistaana marka xal ayay naga rabtaa xalkuna islaamku ku jiraaye islaamkeena iyo diinteena intaan aamino makriga iyo shirqoolada la inoo maleegayo ee la inagu sameeynayo ee danteena aynu ku jirin ee gaado ay sameeynayaan iyo inaan sidaan ka baxan aan diyaarka loo ahayna seen la lagu haayo sidii looga bixi lahaa hadayna dad u kicin oo warseen ka yeelna laga tashanin saan baa lagu jiraa mar khayr